الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa 7 bisha Ramadaan ee barakeysan 1440 taariikhda kalena 12 bisha shanaad 2019 waxaa halkan Masjid al-Ansar noogu yimi darsigii casarka markaanu ka baxnay kadib Xamse Yare iyo aabihii Cabdiraxmaan oo hore arrinkooda aan ugu bandhignay dadka muslimiinta ah. waa inankii yaraa ee dhiigu ka dhamaanayay 15 maalmoodba mar dhiig lagu shubaayay. dadkii muslimiinta arrinkiisa aan u bandhignay alxamdulillah si fiican bay uga jawaabeen. ilaa hadda waxaa soo gaadhay aabihii Cabdiraxmaan sida uu noo sheegay lacag ku dhow 17,000 oo dollar. laakiin marka la eego xaaladiisa caafimaad iyo kharashka ay u baahan tahay aad buu intaasi uga badan yahay. hindiya ayaa hore loo geeyey Xamse Yare. sababta looga soo celiyeyna waxay ahayd kharashkii dhakhtarku uu doonay iyo dhuuxii loo baahnaa ee lagu shubi lahaa oo labadii midna aanu suurto gelin. dhuuxa inankii kale loo kaxeeyey way isyeelan waayeen, 30% bay isku mid ay ka noqdeen. lacagta dhakhtarku uu ka doonayna waxay ahayd 50,000 oo dollar marka la eego gacanta ama farsamada inta uu ku qaadanayo dhakhtarku. waxaa kaloo aad dareemi kartaan safarka hindiya kharashka uu baahan yahay socod soo socod iyo joogitaan. waxaa kaloo dhici karta in la waayo qof ay isku dhuux yihiin. taasina waxay sababaysaa in la doono qof laga iibsado dhuuxiisa. dhakhaatiirta hindiya ay sheegeen inay iyagu warbaahinta gelin doonaan oo haddii la helo isagana waxa uu noqdo kharashkiisu qoysku ku khasbanaan doono inuu bixiyo. waxaynu odhan karnaa lacagta ilaa hadda soo gaadhay dad badan baa alxamdulillah aada ugu dadaalay, warkiisana waa la isgaadhsiiyey. laakiin intii uu u baahnaa ama daaweyntiisu ay u baahnayd marka loo eego meel kaga dhici mayso. mar labaad baanu ku celinaynaa oonu u bandhigaynaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan bisha Ramadaan ee barakeysan in looga faa'iideysto ilmaha yar ee walaalkeen uu dhalay ilmaheeniya inaynu dhammaanteenba aynu caawino. dadkao dhan haddii qof waliba xil uu iska saaro oo xataa qofka in yar hayaa intaa yar uu soo diro, mar kastoo tirada dadku ay badato wixii la bixiyeyna wuu badanaya. waxaa laga yaabaa sida lagu qiyaasay 100,000 oo dollar ama ka badan inay noqoto lacagta hawshiisu ay u baahan tahay marka la eego lacagta kharashka dhakhtarku uu qaadanayo, marka la eego haddii ay baahidu keensato in dhuux loo iibiyo, marka la eego kharashaadka safarka oo khasab ay tahay inuu mar walba raaco aabihii iyo hooyadii. haddii qof saddexaad la helo oo dhuuxa loo kaxeeyo sida markii horeba dhacdayna kharashku wuu sii badanaya. haddii ay dhacdo lacagtii loo baahnaa inay soo gaadho sidan oo kale insha allahu tacaala u sheegi doono oon ku odhan doonaa dadka muslimiinta ah lacagtii loo baahnaa hadda way soo gaadhay in ku filani ee halkaasi ku joojiya oo sadaqaadkiina iyo caawimadiina meel kale u wareejiyaan odhan doonaa. aad baan ugu ducaynaynaa rag iyo dumar ciddii ka qayb gashay ilmaha yar caawintiisa. ilahay idinka abaalmarimaan leenahay, ilaahayna ha idinka aqbalo, ilaahayna maalka iyo ubadka iyo nafta iyo diinta iyo dunyada intaba ha idinku barakeeyo. inta kalena waxaan leenahay weli wuu idin sugayaa Xamse Yare, waanu idin baahan yahay. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran. nambarada lacagta loogu soo dirayaa waa kuwa mar walba ka muuqan doona shaashada. nambaradana waxaa haya aabihii Cabdiraxmaan, isagay toos ugu soo dhacaysaa. qofkii doonaya inuu macluumaad dheeraada uu ka helo wuu la soo xidhiiri karaa oo uu weydiin karaa. dad badan baa waxa weeyaan aniga ila soo xidhiidhay gaar ahaan dadka dibadda jooga oo macluumaadkiisa usii faahfaahiyeen u sharaxay. qaarna waxaan u diray waraaqihii caafimaadka dhakhaatiirta hindiya ay qoreen. markaa saasaynu biidni illahi subxana watacaala wanaagga isugu kaashanaynaa. wax qof kelmad ku caawiyo cid ula hadla iyo qof shilin ama dollar ku caawiya, mid walba ajarkiisu ilahay subxana watacaala agtii lumi maayo. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.